rasuulku inooga digay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ruuxa madluumka ah oo laga gardaran yahay inuu ilaahay ducadiisa markiiba uu aqbalo. baryada qofka madluumkaa ilaahay markiiba wuu aqbalaa. waxaanu ilaahay inooga digay habaarka qofka madluumka ah inaynu qaadanno. waxaanu rasuulku yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiid saxiixa: ittaquu dacwata almadluum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. iska jira oo iska ilaaliya habaarka qof la dulmiyey. ha dulminina. qof haddaad dulmisaan habaarkiisu idin seegi maayo, sababta oo ah ruuxa madluumka ahee la dulmiyey iyo tugsiga rabbi wax allaaliya wax xijaabaho u dhexeeya ma jiro. waxaa kaloo aada iyo aada looga digaa dadka cuqaasha ay ka digi jireen iyo sugaanyahanadu in qofka awood isbidaa aanu awooddiisaa tala saaran oo aanu dadka ku tacadiyin. haddii uu ku tacadiyana hadduu markaa uu isagu hurdo inaanu qofkii la dulmiyey aanu seexanayn xanuun darteed, ilaahayna uu arkayo aqbali doona. laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran faadulmu aakhiruhu ya'tii binnadami. laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran, haddaad awood iyo tabar isbiddo dulmi ha shaqaysanin. faadulmu aakhiruhu ya'tiika binnadami, haddaad wax dulmido gebagabahiya aakhirka waad ka nadaamoon doontaa. naamat cuyuunuka waalmadluumu muntabihun yadcuu calayka wa caynu llaahi lam tanami. naamat cuyuunuka, adigu waad iska raaxaysanaysaa ruuxan wax dulmiyayow, laakiin ruuxii aad dulmiday gogosha ma ladayo, gogosha uu qaban lahay dulmigaad u geysatay darteed. wa caynullaahi lam tanami, ilaahay cayntiisuna ma seexato abad, ilaahay ma seexdo. laa ta'khuduhu sinatun walaa noom. marka waxaan ka digayaa meesha dulmiga ku jiro, ruuxaa dulmiga wada inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dulmigaa u dhaafaynin. waxaa muhiim ah inaad ogaataan uheelinta gaalada loo hayliyo in ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa lagu mutaysanayo. nin gebiyey baa wuxuu yidhi: gaal nin u midiidimay maqaam naara inuu geli, diintaa u maragahee ma wax laga murmaabaa. haddii ruuxu dabadhilif gaalada u noqdo waxay noqonaysaa aakhiro noloshiisu inuu ilaahay naar ku dambaysiiyo. nin kalena wuu gebiyo wuxuu yidhi: berye wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho, berye wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho jahannamo inuu gaal ninka gaalo saacida muslimna gooyo xadhiggiisa. ninka gaalo saacida muslimna gooyo xadhiggiisa, berye wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho jahannamo inuu geli kitaab garanayaan sheegay. qofka bini-aadmigee gaal u hiilinaya wuxuu la soo xaadirayaa gaalkaa uu u hiilinayo buu qiyaamaha la soo xaadirayaa. oo nebigeennaa yidhi calayhi salaatu wasalaam: almar-u maca man axabba yowma alqiyaama. wax la hubo oon muran ka taagnayn weeye. qowmkan maanta uu ka hadlay cabdilmaalik muuse coldoon wuxuu ku sheegay inay yihiin cidi kama muransana, oo gabadha la yidhaahdo joy ciisa inay tahay baadariyad diinta kiristaanka fidisa. caddaynteedii baa la hayaa. waxaana xaqiiqo ah qofku markuu diin leeyahay, weliba wadaad ku yahay diintiisa, mar walba inay la fakanayso inuu diintiisa faafiyo. masalan, haddaan anigu wadaad ahay oo carruur kiristaana la ii dhiibo, mar kastoon jaanis u helo diin islaamka inaan u sharxo oo aan u qurxiyo waan ku dadaalayaa. kuubar ayuu ka hadlay cabdimaalik. kuubar muran kama joogo, waana nin khaniis ah oo haddii alla yidhaahdo edebdarro yaqaana. caalamka iyo uunkana meelo fara badan ayaa laga diiday inta uu dalbaday inuu fiise ku aado. marka
dadka caynkaas ah waxa keliya ay soo saari karaan waa dad iyaga uun la mid ah oo waxaa la yidhaahdaa dheri kastaaba wuxuu dhididaa waa waxa gudihiisa ku jira. waxaan maqlayay dad badan oo qaarka odhanaya cabdimaalik muuse coldoon ma kelidii baa wadaada. runtii cabdimaalik kelidii diinta ma yaqaan, laakiin marka ay sayma gasho cidhiidhi ay gasho marba ruuxunbaa ilaahay ku karaameeyaa inuu diinta u hiiliyo. diinta in loo godoboobana waa muqarabaadka iyo waxyaalaha ugu fiican ee ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala. am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaأtikum mathalu aladiina khalow min qablikum masadhum اlba'saau waاdaraa aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun. iyo aayado badan baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa in diinta loo godoboobaa ay tahay waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay jecelya tabaaraka wa tacaala. maanta tanuu cabdimaalik ka tiraabay waa arrin khusaynaysa caqiidada iyo diinta islaamka. ilmaha yaruna haddii aanu diin islaamkiisa aqoon badan u lahayn waa la habaabin karaa. arrinkaana nasteexo iyo talo ayuu ka soo jeediyey, in lagu ceebsadana anigu uma arkayo. waxaan leeyahay cabdimaalik muuse coldoon runtii waa shakhsi ku sifaysan sifooyin uu rasuulkeennu ka markhaati kacay ruuxa dhaqankaasoo kala yeesha inaan ilaahay garabkiisa ka baxayn. maalintii ay qalbiga u dejinaysay khadiija bintu khuwaylid radia allahu tacaala canha wa ardaaha nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh sifooyin bay tilmaantay ruuxa ku dhaqma aanu ilaahay dullaynaynin subxaanahu wa tacaala. waxay tidhi kalla abshir fawallaahi laa yukhziika allaahu abadan. waxay tidhi abidkaa ilaahay ku dullayn maaye. sababay sheegtay markaa khadiiji ilaahay loogu dhowaado, qofka bini aadmigaana ilaahay ugu hiiliyo marka uu cidhiidhi galo. innaka latasilu raxima. qodobka koowaad waxay tidhi waxaad xidhiidhisaa sokeeyaha. wa tasduqu alxadiida, warkana been kama sheegtid. wa taxmilu lkalla, dadka kadeedanna waa taageertaa. wa tuqri dayfa, martidana waad karaamaysaa. wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq, dadka dhibaatadu ku timaadana waad u gurmataa. in badan oo aan isyeelyeel ahayn oo aan u falaya insha allahu inuu dar ilaahay ka ahaa ayuu ummad badan ayuu u gargaaray oo ilaa iyo xayawaankiibaa gargaarkiisii iyo gurmadkiisii uu gaadhay. marka wiilkaas waxaan leenahay sabir oo dulqaad yeelo, ilaahay baa kuu gargaari doona. wakhtiguna sidaa ahaan maayo, dadkuna galsho maahoo guri maayaanee taariikhdu way isqori doontaa haddii ilaahay ka dhigo. maanta waddadaad haysaa waxay iila muuqataa waddadii axmed binu xambal markii ay culimmadii islaamku ay ka gabadeen masaladii khalqulqur'aanka ee lagu riiqday. ninkii u kacay diinta ee xaqa caddeeyey axmed binu xambal buu ahaa. xabsi buu u galay, karbaashna wuu ku mutaystay. axmed binu xambal baa waxaa lagu yidhi ma adigoo keliyaa diinta wax ka yaqaan mise kelidaa baa difaaci kara, ilan far keliya fool ma dhaqdeen. soo tan culimmadii kaloo dhani ay ka gabatay maxaad uga gaban weyday? sayidinaa axmed binu xambal hadal aad iyo aad u murti badan buu ku hadlo oo wuxuu yidhi idaa akhadat alculamaa'u taqiya wa jahila aljaahilu mataa yucrafu alxaq. haddii culimmadii ay xeeladaysato oo xaqii ay caddayn kari waayeen, dadweynihiina waxa la ysku hayo aanay aqoon u lahayn, ciddii u caddayn lahaydna ay ka gabato mataa yucrafu alxaq.